Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin akhyaarta halkan igala socota aad baan idiin salaamayaa. Kusoo dhawaada caruusad filaa. Fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar, like iyo share asxaabtaada. Dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa. Maanta waxaan doonayaa in mowduuc aad muhiima oo in badan laysoo weydiiyey, mowduucaas oo ah iskaraabyada. Nooceebaa u fiican, noocyada tijaabisi keebaa u wanaagsan, maxay kala yihiin. Maanta waxaan doonayaa halkan inaan idinku soo bandhigo. Marka asxaabe, maanta waxaan doonayaa inaan idinkala sheego iskaraabyo ugu yaraan 12 iskaraab oon anigu tijaabiyey shakhsiyan, oon mid walbana ka haysto, mid walba wuxuu taro, mid walba wuxuu u fiican yahay, mid walba waxyaabaha uu qabto, waxyaabaha uu kala kaga duwan yahay, faa'iidooyinka aan ka arkay, sida ay u kala fiican yihiin, qaababka ay wax u tarayaan, iyo qof walba skiinkiisa ku u baahan yahay ayaan doonayaa inaan idin kala sheego. Marka fadlan ila socda. Fadlan haddaad nagu cusubtay subscribe noo saar, fadlan like kusoo wada qabta iminka intaad boos ku yara qabataan videoga. Like dhiirigelin bay noo tahay. Iskaraabka koowaad aan ka hadli doonaa waa Garnier. Iskaraabkan waa iskaraab run ahaantii aan odhan karo number 1 weeyaan, khaasatan qof kasta oo wejigiisu qolof leeyahay, qof kasta oo wejigiisu aanu sibibix ahayn, ama qolof, ama wax dul saaran, ama maxaa la dhahdaa, waayo isla markaaba isaga natiijadiisa waad arkaysaa. Maaha midaad waqti sugaysid, mida toddobaad kadib aad arkaysid natiijadiisa kaa biinaya. Qolof kasta iyadoo saa kuu saaran ayaa hal mar markaad saa u marsato intaba wax allo wixii qolof ku saaraa, wax allo wixii dead skin ku saaraa, saasad hal mar iskaga wada qaadaysaa. Run ahaantii waa iskaraab cajiib anu number 1 baan ku tilmaami lahaa. Run ahaantiina kama maarmo anigu. Iminka kanaad arkaysaan wiiga dhammaaday, insha allah isleeyahay dalabka dambe aad raacsatid. Iskaraabyada inoogu soo xiga waa iskaraabyada halka inooga muuqda Stilifiska, Garnierka oo laba nooc halkaas inooga muuqdaan. Waan doonaya iyagana inaan mid idinku sharaxo si aad u fahantaan. Ka koowaad aan ka hadlayna maanta waa Garnier. Waxuu ka kooban yahay 3 in 1 weeyaan. Isagoo iskaraab keliya maaha, wuxuu ka kooban yahay iskaraab, mask iyo face wash. Halkaad face wash gaar u iibsan lahayd, mask gaar u iibsan lahayd, iskaraab gaar u iibsan lahayd, 3diba uu ka kooban yahay. Waxyaabaha dry skinka, madmadowga, hadhka, wax kasta ood ka cabanaysana wuu ka caawinayaa. Marka waxaan odhan karaa waa number 2, laana kii hore marka loo eego kaa hore wuxuu aad ugu rakisayay ama xooga saaray inuu qolofta kaa qaado, laakiin kan wuxuu kaa qaadaya wax kasta. Hadday dry skin noqoto, haddaad hadh lahayd, haddaad madow lahayd, haddaad daal kaa muuqday oo waxaan kuri ayaa muddo aanad isdaryeelin oo wejigaagu daal lahaa. Ka kalena soo gudbaynaa 3aad, waxa weeye isaguna Stilifis. Iskaraabka 3aadna iskaraabkan weeyaan. Markadan waan ka soo hadli doonaa noocyo badan oo leedahay. Run ahaantii xoog buu wanaagsan yahay, aad baan u fiican yahay. Ana shakhsiyan waan tijaabiyey oo aad buu ii naasibay. Insha allah idinkana waxaa idin rajaynayaa inuu idin naasibi doono, wejigiina qurxin doono, wejiga uu kuu nafaqaynayaa, dufankii uu kaa biinayaa. Masha allah buu wejigaaga dhigayaa. Marka ayaan la mooganin asxaabe.
kan afraad aan ka hadli doonaa waxa weeye Neutrogena. waxa weeyaan liisaalati ru'uusi soodaa madmadowga ama blackheadska sanka dushooda. dadka sanka dushooda dhibcaha madmadow ku leh ayaa loogu talagalay. kan waxaan oran karaa waxa weeyaan waa number 3 amba number 2. wuxuu kusoo xigaa Garnierkii aan ka sheekeynayay. haddii aad sankii agaarkiisan dhabanada aad dhibca madmadow ku leeday ama cadcadaan aad ku leeday, haddii finanku kaaga tageen madmadow wuu kaa biinaya, hadhka wuu biinaya madmadowga, wejigaaga saafi isku mid ayuu ka dhigayaa. maasha allah. markaa dhammaan dadkii ka cabanaya dhibca madmadow ama sanka ha ku lahaadaan ama dhabanka ha ku lahaadaan ama madmadowba ha lahaadaan, run ahaantii kan ayaan kula talin lahaa. xataa haddii aanad ka cabanayn, ano shaqsiyan malihii wax madmadow iyo wax dhibca iyo toona wejigayga male, laakiin waan isticmaala la-anoo xoog baan u mahadiyey. wallaahi kan cajiib weeyaan. ka kale aan ka hadli doonaa kan weeyaan, wuxuu ka kooban yahay bun iyo nacnac. kan waxaad u isticmaali kartaa wejiga iyo jidhkaba. wuxuu ka samaysan yahay sonkor iyo bun iyo nacnac ayuu ka samaysan yahay. quraaradaas buu ku jiraa. jidhka oo dhan yacni sidaas sonkorta kale u fadhiyaa. jidhkaaga waa iskaraab qawiya, yacni meelaha xataa waxaad ku xoqi kartaa fanaxyada jidhka oo dhan, ruugaga, yacni meelaha aad adaga xataa aanu iskaraabkan kale waxba ka qaadahayn ayuu isagu wax ka qaadayaa. waayo xoog waxaa la odhan jiray qawi, yacni xoog buu u qabanayaa wax. markaa run ahaantii kan qudhiis xoog buu wanaagsan yahay. weji iyo jidh ilaa qoor ilaa meel walbood marin kartaa. anigu jidhkan u isticmaalaa badanaa, wejigana marmar waan mariyaa, laakiin jidhkan xoogu si isticmaalaa. labadan iskaraaba kale inoogu soo xigaa. labadan iskaraaba kale waxaa weeyaan mid wuxuu ka samaysan yahay gariintii, ka kalena wuxuu ka samaysan yahay qumbe. ka koobaad aan idiin bilaabo. kan koobaad waxa weeyaan gariintii buu ka samaysan yahay. wuxuu biyaa blackheadska ama madmadowga sanka, dhabanada, dhammaan madmadowga iyo dhibcaha madmadow oo dhan. kan kale isaguna waxa weeyaan wuxuu ka samaysan yahay coffee iyo qumbe. isaguna xoog ayuu wejiga isaguna ugu fiican yahay. anuu gudubna kan kale isaguna waxa weeye diin maqribi muqashir weeye. diin maqribi buu ka samaysan yahay. jidhka iyo wejigaba waad u isticmaalaysaa. weliba khaasatan dadka dufanka leh buu u fiican yahay. haddaad dufan leedahay waa kii lagugu talagalay. dhaydhiskiinku qaadayaa, dufankuu biinayaa, madmadowgu biinayaa, hadhka waxoosoo dhan ayuu biinay. xoog buu wanaagsan yahay. kan kale isaguna waxa weye qinaaca burkani weeyaan ama volcano baa la yidhaahdaa. isaguna waxa weye iskaraab loogu talagalay dadka wejigooda dufanka leeyay. dufanka uu kaa yareynayaa. marka jidhka iyo wejiga labadaba waad u isticmaali kartaa. madmadowga, dufanka, hadhka intaba uu kaa biinaya. fadlan haddii aad hore nooga soo saaran subscribe noo saar. aynu gudubna ka xiga. kan xiga isagana waxa weeyaan iskaraab. wuxuu ka dhigayaa wejiga ama jidhka meesha aad marisaba soft. wuxuu ka samaysan yahay afkaadho iyo malab buu ka samaysan yahay. maasha allah. wuxuu ka dhigayaa wejigaaga cajiib. kaa kale isaguna waxa weeyaan hore naga soo hadalay. aynu soo gudubno iskaraabka madow. iskaraabka madow hore aan intaasoo jeer uga soo hadlay. waa iskaraab 100% xoog wanaagsan, yaan la moogaani maleey. marka iskaraabkan madow dad badan oo naga iibsadana runtii feedback wanaagsan bay nagu soo celiyeen. iskaraabka xiga waa diamond iskaraab xoog fiican weeyaan. wejiga dhaydhiskiinka madowga
ka qaaday jirka marsan karta xataa udgoon weeyaan maasha Allah buu ka dhigayaa yalla moogaanin badilay kan wuu yaala haddaad u baahan tihiin diamond scrub ka cidii u baahan wayna soo xiriiri kartaa ويالا جملة تفاريق ويالا وجي جربود استعماليسا ما شاء الله بكارديga يا لما وجاني بدي ليهاي بدو mahadsantiin fadlan subscribe taanagi laabina like tuna dhiirigelin bay noo tahay la wadaag asxaabtaada hablaha ah iyo dhammaan cid kastoo ay khusayso aad leedahay oo ka faa'iideysaa aad baad u mahadsantiin fiidiyoyada horena soo daawo insha Allah si aad uga faa'iido dhammaan qurxinta wajiga iyo jirka iyo meel walba